badan oo ka mid ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Wardhigley ayay faarujiyeen ciidamada xarakada al-shabaab kuwaas oo ka arriminayay labadii sano ee la soo dhaafay taas oo si nabadgelyo ah ay u gaareen deegaanadaasina ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamada AMISOM meelaha ay ka baxeen xarakada al-shabaab ayay ka mid ahayd xarunta degmada Yaaqshiid iyo suuqa ugu weyn ee labaad ee magaalada Muqdisho ee suuq Bacaad halkaas oo saraakiil ka mid ah ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo xubnaha maamulka gobolka Banaadir ay kula hadleen dadweyne iyo ganacsato ka mid ahaa kuwa suuq Bacaad iyagoona u ballan qaaday in amaankooda la sugi doono dhinacoodana ay ka codsadeen in dawladda ay la shaqeeyaan inaad la shaqeysaan aan ka rabno waxa way ciidamada nabad sugidda iyo booliska oo degdeg idin ku keenin waxaan idin sheegaynaa in nin askari ah ama nin dawladda ka tirsan ama nin kale ha noqde oo hantidiina taaba karin ninkii taabtana barta uu jooga lagu dilayaa ma jirin wax rasaas oo ka soo dhacaysay goobaha ay baneeyeen ciidamada al-shabaab hase ahaatee waxaana jirin kalsooni buuxda oo ah in si rasmi ah loo gaaro fariisimaha ay ka ambabaxeen ciidamada al-shabaab waxaana meelaha qaar laga maqlayay dhawaaqa rasaas goosgoos ah sida isgoyska Sanca oo aan mar aan ku dhawaanay ay ka dhacaysay rasaastaas oo ay ciidamo ka mid ah kuwa dawladda ku meel gaarka ah noogu sheegeen inay tahay rasaas ay isticmaalayaan ciidamada dawladda Soomaaliya xarunta degmada Yaaqshiid oo si nabadgelyo ay si jiraad ugu qabteen 2 sano kadib maamulka degmada Yaaqshiid oo ay weheliyaan jarnaal ka mid ah ciidamada dawladda ku meel gaarka ah iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka ayaa ugu horeyn inta aysan mas'uuliyiintaasi ka hadlin waxaa laga dajiyay calanka xarakada al-shabaab oo halkaasi ka babanayay waxaana isla goobtaasi aan kula kulannay Maxamuud Maxamed Cadow oo ka mid ahaa dadka deegaanka isla markaana ah odayda ah kaasoo isagoo ilmeynayana soo dhaweeyay mas'uuliyiintii halkaasi gaaray sheegayna inuusan filanayn inay dib si nabadgelyo isugu arki doonaan alxamdulillah ma sha Allah alxamdulillah Allah waxaan ku isku aragnay in uu la cafiyo ayagana maxaa jira wixii muslima in la cafiyo gudoomiyaha maamulka degmada Yaaqshiid Muxudiin Jurus ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay marka waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed in laga dulqaaday cadawgii meelaha ay ku reeyeen laga dulqaadi doono ilaahay ayaan u magacaleynaa xoogga dalka iyo mataqaana in qaranka Soomaaliyeed dhammaan u magacaleynaa General Gacmo Dullo oo ka mid ah jannada ciidamada dawladda ku meel gaarka ah ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay dib ugu soo laabtaan guryahooda dadka shacabka deegaanada degan ee aan cadawga la jirin inay guryahoodii ku soo noqdaan dawladda ay kaalmaystaan ciidamada qalabka sida ay kaalmaystaan si wax yaalaha xumo haraaga oo meelaha ay uga tagtageen oo meelaha ku dhuumanayeen aan ognahay looga taqaluso meelaha ay cileeyeen xarakada al-shabaab ayaa waxaa ka mid ahaa suuqa weyn ee Bakaaraha halkaas oo maanta ka madax banaaneed rasaastii isku dhaafsan jireen ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya iyo xarakada al-shabaab waxaana laga dheehanayay meelaha qaar burbur lixaad loo ay gaarsiiyeen madaafiicda iyo rasaastii la isku dhaafsanayay dagaaladii ka dhacay gudaha suuqa Bakaaraha marka laga soo tago deganaanshaha suuqa iyo burburka soo gaaray ayaysan jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi oo halkaasi ka jiray inkastoo qaar ka mid ah ganacsatada lagu arkayay iyaga oo soo gaaraya iyagoo koox-kooxa isla markaana cid walba ay eeganaysay xarunteeda ganacsi General Yusuf Maxamed Siyaad Indhacad oo shir jaraa'id ku qabtay meel ku dhow isgoyska Baar Ubax ayaa dhankiisana waxa uu sheegay in dawladdu ay u xilsaartay ammaanka suuqa isagoona beeniyay inaysan jirin wax dhac iyo booba oo loo geysanayo ganacsatada iyo goobahooda ganacsiga taasoo ay ku dhaqaaqayaan ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya meeshan sadarkiisa waa Baar Ubax iyo qaaraha dhinac uga waaye masaajidkii xareed sooniisi waaye إن شاء الله تعالى نصلي كيسان وحدهم ماشي كما جيران إلهي بقى نمانكي دامدا ككدي إلهي بقى كما أحسن دولدنا waxay u soo xil saartay ilaa maanta ay ka dambeeyay cid kale oo soo saar doona laga yaaba ama aniga baa liiday doona laakiin intii maanta ana la soo xil saaray amnigiisa suuqa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in uu suuqu badbaado warkii ay shaydaamadu shubayeen
oo ahaa TFG ciidamadoodu waa tuugo dadkay dhacaan dadkay dilaan waxaad aragtaan inay been yihiin ciidamada TFG jooga guri la jabsada ma jiro waad aragtaan wax la qaadanaa ma jiraan sidaa awgeed waxaan rabnaa inaad arrintaa aad si fiican u aragtaan si cadna u gaarsiisaan caalamka shirkadihii kulli waa u fasaxnay shaqadoodii hadday isgaarsiinaayeen iyo hadday xawaaladaayeen dhammaantood baa u fasaxnay